maanta ninka dhalinyarada ah ee mutacallimka ah ee aqoonta iyo aqliga aanu ku tuhmaynaadno hor keenteen waxaad tidhaahdeen taladayadii ninkaasay ku dul ururaysaa maqhraati baannu ka nahay maqhraati ilaahay baannu ka nahay berri idinkoo dhinacyada ka dhaafaya yaanaan arkay idinkoo dhinacyada ka dhaafaya haddaannu aragno idinkaa xun soomaali hal baan odhanayaa soomaalidu faal ay samay af laga maanta xaaladda ay Soomaaliya ku sugan tahay wax la oran kara ma hebelo wax ka qabo wuxuu yiri ninkii Xasan Jige Xaybakh awal Ingiriis bay ku duulow wareegaysay maanta qayb Soomaaliyeed ba Israa'iil u gashay intii kalena isma hayso cidda laga dhowr qof kuma eegi karayna taladii Soomaaliyeed dhowr qof kuma tala bixi karaan talada Soomaaliyeed waa inay dhexda taallaa talada Soomaaliyeed Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii la yiraahdo sidaynu yeelaa si la yeelo lama garan waayo haddiise ay dhacdo nin tooxsi waxa maanta Soomaali halkaa kala geeyay waxa weeye aniga keligay baa wax garanaya waxa halkaa kala geeyay waxa weeye anigay ugu wacan tahay haddaynu taasi eeganana waxay ku dambayn doontaa meel xun oo aan laga soo bixin mana ka faa'iideysan doono nimcadan Ilaahay ina siiyey ee ah inaynu isku haybnahay inaynu isku afnahay iyo inaynu isku diinnahay marka waxaan u maleynayaa gudoomiyihii dhaqanka ee Soomaaliyeed shir Soomaaliyeed oo ay isugu timaado dhaqan Soomaaliyeed gudoomiyihii ugu dambeeyay baana ilaa hadda meel aan ku wareejiyay ma jirto horta waxaan leeyahay ku soo dhawow golihii dhaqanka Soomaaliyeed ugaas Maxamedow ugaas Cabdiraxmaan ugaas Maxamedow talabaadna Soomaalidu ma aha gobollo isu yimid waa beelo isu yimid mas'uuliyadda dhaqanku ay ka gabanayaan siyaasiyiinta la xijinayo walla meel fog baa laga dooni doona meel fog haddaan aamusno meel fog baa laga dooni culimada iyo dhaqanka iyo ganacsatada iyo Ilaahay hadduu ku roon yahay haddayan u istaagan xaajada Soomaaliyeed oo halkay ahayd aan lagu soo celin waynu lumaynaa haddaynu lunana Allah ka baryaya abaartan inuu naga soo jabiyo barwaaqo inoogu bedelo balli iyo barkad kasta uu buuxiyo guri iyo geed kasta Allah Azza wa Jalla roobka ku shubo Ilaahay mid hayna siiyo Ilaahay saasaynu ka baryeynaa gurigeenu joogno iyo ehelkiisa Allah barakeeyo